booliska dalka Faransiiska ayaa 4 qof u soo xiray dilka macallin taariikhda dhiga oo xalay lagu qowracay meel u dhow magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi Faransiiska. ninkani macallinka ah oo ahaa mid inta badan lagu yaqaano cunsurinimo iyo sidoo kale inuu ka soo horjeedo dadka muslimiinta ah ayaa xalay weerar waxa ku qaaday nin aanan ilaa hadda magaciisa la sheegin lana tuhunsan yahay inuu ka mid yahay muslimiinta ku nool dalkaasi Faransiiska. booliska ayaa sheegay in weerarkaasi ay rumaysan yihiin inuu ahaa argoosi kadib markii macallinkaasi cunsuriga ah uu ardayda u soo bandhigay sawir gacmeed la sheegay in laga sameeyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaasoo markii hore lagu daabacay wargeyska isna cunsuriga ah ee la yiraahdo Charlie Hebdo. ninkan weerarka geystay ayaa markii dambe waxaa toogasho ku dilay sida warbaahinta dalka Faransiiska ay soo tabinayaan booliska dalka Faransiiska. booliska ayaa xalay baaritaano ku sameeyay hooyga ninka looga shakisan yahay inuu weerarkaasi geystay xabsigana soo dhigay 4 qof oo la sheegay inay xiriir dhow la lahaayeen qofkaasi weerarka geystay kaasoo la aaminsan yahay inuu ahaa 18 jir u dhashay dalka Ruushka. walow magaciisa oo rasmi ah aanan la sheegin ayaa haddana dadka qaar goobjoogayaasha ahaa xilligii uu falkani dhacayay waxa ay sheegeen ninkani inuu u ekaa dadka muslimiinta ah calaamadaha muslimiintana ay ka muuqdeen taasi oo suurtagal ka dhigtay falka ninka macallinka ah lagu dilay inuu xiriir la leeyahay sawirkii macallinkaasi hadda ka hor uu tusiyay ardaydiisa. weerarkan aadka looga hadalhayo dalka Faransiiska ayaa la sheegay inuu ka dhashay cashar ku saabsanaa sawir gacmeed muran badan dhaliyay oo laga sameeyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. macallinkan la dilay ayaa la sheegay in ardayda muslimiinta ah ee fasalkiisa dhiganaysay uu marka hore ka codsaday inay iska baxaan kadib markii ayaga ay baxeen dadkii kale ee ku soo haray fasalka uu tusiyay sawir gacmeed laga sameeyay Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen nin watay mindi weyn in uu macallinka ku weeraray wada ku taala xaafadda lagu magacaabo Conflans Saint-Honorine isaga oo madaxa ka jaray macallinka. ila booliska u dhow ayaa sheegay in marqaatiyaasha ay maqleen qofka weerarka geysanayay oo ku dhawaaqayay Allahu Akbar ama Allah ayaa weyn waa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. qofka weerarka geystay ayaa markiiba waxa la sheegay inuu goobta isaga cararay laakiin bilayska maxalliga ah oo ay wargeliyeen dadweynaha ku sugan halkaasi ayaa durbadiiba soo gaaray goobta. saraakiisha booliska ayaa ninkani kaga daba tagay degmada u dhow halkaasi ee la yiraahdo Eregani waxa ayna u sheegeen in uu isdhiibo waa sida ay warbaahintu tabinaysay balse waxa la sheegay in bedelkeeda uu ninkaasi u hanjabay booliska taasina ay dhalisay in ay toogasho ku dilaan ninkii mindida watay. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dilka macallinkaasi oo ka dhacay waqooyiga bari ee magaalada Paris ku tilmaamay weerar argagixiso. Macron ayaa sheegay in macallinka oo aanan weli magaciisa la sheegin loo dilay sababo la xiriira xorriyatul qowlka laakiin warbaahinta dalkaasi ayaa waxa ay tabinayaan in arrinkaasi uu ku lug lahaa sawirkii uu macallinkaasi tusiyay ardayda ee ahaa midkii laga sawiray Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Macron ayaa waxa uu sheegay in aanan marna loo dulqaadan doonin in la beegsado macallimiinta dalkaasi isagoo sidoo kale macallimiinta u ballan qaaday in naftooda ay difaaci doonto dawladda dalka Faransiiska. dhanka kale Macron ayaa midnimo ugu baaqay dadka shacabka ah ee ku nool dalkaasi Faransiiska waxa uuna sheegay in marnaba aysan suurtagal ahayn in argagixisada ay ka guuleysato waliba ay weerar ka geysato gudaha dalka Faransiiska isagoo sidoo kale sheegay in dalka Faransiiska ay ka go'an tahay inuu difaaco muwaadiniintiisa. waxaana haatan socda baaritaan la xiriira dacwad oogayaal qaabilsan la dagaalanka argagixisada. ma ahan markii ugu horeysay ee wargeys reer galbeed ah ama qof reer galbeed ah uu tabiyo ama uu soo jeediyo sawir lagu sheegay in laga sawiray Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelee.
dalka Faransiiska ayaa taariikh ahaan waxa uu leeyahay in sawir gacmeedyada lagu matalayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lagu soo bandhigo wargeyska qaabka maadaysiga ah wax u qora ee ka soo baxa dalka Faransiiska ee la yiraahdo Charlie Hebdo ayaa dib u daabacay sawir gacmeed laga sameeyay Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee bilowgii bishani kaasi oo horseeday cara ka timaaday wadamada muslimiinta iyo sidoo kaleete ummadda caalamka ku dhaqan wargeyskan oo markii hore sawirkaasi horey u daabacay sanadii 2015 ayaa mar labaad dib u soo cusboonaysiiyay waxa ayna arrinkani ku soo beegeen xilli 14 qof loo haystay dacwad ka dhan ah in weerar ay ku qaadeen wargeyskaasi Charlie Hebdo ee soo daabaca sawirada farshaxanada ah sanadii 2015 ayaa weerar lagu qaaday wargeyskaasi Charlie Hebdo waxaana ku qaaday dad muslimiin ah oo ka caraysnaa sawir ay ku sheegeen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay dad fara badan oo ay ku jireen dad farshaxaniistayaal ah oo u shaqaynayay wargeyska maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay 7 bishii Janaayo ee sanadkaasi 2015 laba nin inay weerar ku qaadeen xafiiska wargeyska Charlie Hebdo ee ku yaala magaalada Paris ka hor inta aysan rasaas ku furin shaqaalaha wargeyska tafaftirihii wargeyskaasi Steven iyo afar ka mid ah shaqaalihii wargeyska ayaa halkaasi lagu dilay wargeyska Charlie Hebdo ayaa waxaa lagu yaqaanaa inuu daabaco sawirro dood iyo cara dhalisa waliba kuwaasi oo inta badan uu la beegsado muslimiinta waxaana la sheegaa inuu ka mid yahay wargeysyada ka soo baxa dalka Faransiiska ee sida badan uga soo horjeeda joogitaanka iyo jiritaanka muslimiinta daawadayaal inta waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkii aynu uga hadlaynay macallinkii qoorta laga jaray ee sawirka lagu sheegay in Nabi Muhammad uu yahay tusiyay ardaydiisa tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale وأنيقو إنك قد تغيّا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.